Dabcan, dad badan waxay isbeddel u samayn waayeen. Waxaa jira waxyaabo dib u dhigaya kana hortaagan inay gaaraan horumar la taaban karo. Waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 waxyaabood oo u baahan inaad naftaada ka joojiso. Waxaan ku xasuusinayaa inaad kanaalka subscribe saarto, gambaleelkana aad furato si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelino insha Allah. 1. Ka jooji naftaada inaad been u sheegto. Nooca ugu xun beenta waa inaad naftaada been u sheegto. Nolosheenu waxay horumartaa kaliya markaan fursadaha ka faa'iidaysano. Fursadda ugu horeysa uguna daran aan qaadan karno waa inaan nafteena daacad u noqono. 2. Jooji inaad waqti ku lumiso asxaabta xun. Noloshu way gaaban tahay. Inaad waqti ku lumiso dadka farxadda kaa qaada. Kala garo nooca saaxiibada aad leedahay. Saaxiibka xun kaliya gadaal ayuu kuu dhigayaa. Jooji inaad ka cararto dhibaatada. Wajah dhibaatada ilaa aad ka xaliso ma aha wax sahlan. Mana jiro qof adduunka dhib la'aan ah. Xaqiiqdii waxaana soo maraya murugo, kadeed, kufid iyo dhaawac. Nolosha ayaa sidaas ah. Waxaa loo baahan yahay in la wajaho, la aqbalo, laga feejignaado lana xaliyo. Taasi waxay kaa dhigaysaa qofka aad doonaysid inaad noqoto. 4. Jooji inaad naftaada u dayacdo naf kale. Xanuunka ugu daran waa inaad naftaada dayacdo jacayl naf kale oo xad dhaaf ah awadii. Ogow, qof naftiisa jecel ayaa qof kale jacayl siin kara. 5. Jooji inaad xaasid noqoto. Xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabaha qofka kale Alle ku manaystay, aadna ka xumaato intii aad adiga taada xisaabin lahayd. 6. Jooji inaad ku noolaato xusuusta wixii aad soo martay. Wixii horey u dhacay waa taariikh, weligoodna ma soo noqonayaan. Welwel iyo xasuustooda waxay kaa qaadaysaa farxadda. 7. Jooji ka cabsashada inaad qalad samayso. Inaad wax qalada samayso waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samaynin. Guul kasta waxay leedahay fashil badan. Fashil kastana wuxuu ku gaarsiinayaa ugu dambeyn guul. 8. Jooji isku dayga inaad farxad iibsato ama dad kale aad ka raadiso. Haddii aadan ku faraxsanayn qofka aad tahay iyo waxaad haysato, ma jiro cid kale oo farxad ku siin karta iyo waxyaabo qaali ah oo farxadda kuu keenaya. Waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurtaa naftaada, marka ayaa cid kale siin kartaa. 9. Jooji caajiska iyo wahsiga. Naftaada oo aad siiso firaaqo badan ay isaga fadhido, ku fekerta ama hawl badan oo kuu taala aad ka waadsato, waxay kuu horseedaa burbur iyo fasaad. Ku mashquuli naftaada shaqo, wax akhris ama samaynta waxyaabo faa'iido kuu leh. 10. Jooji inaad beddesho midabkaada. In badan waxay muuqooda ku lumiyaan banaanka raadinta qurux. Kuma qanacsana naftooda. Mar haddii qofku yahay abuurta Allah, ma jiro wax ka qurux badan. Waa kuma qofka la isku beddelayo? Ma qof aan asalkaaga kugu rabin oo qurux aan dabiici ahayn kugu raacaya?